beelaha kale marka horeba afweynay ahaayeen runtaan isku sheego Soomaaliya laynagu daray maxaynu isku daalinaynaa Soomaaliya ayaa laynagu daray dambigaana waxa iska leh xukuumadda iska leh oo ka gaabisay inay difaacdo qarannimadeenna sharafkeenna jiritaankeenna iyo madax bannaanideenna inay difaacdo xukuumadda ka gaabisay marun baynu isku sheegnaa misabeen ilaahay baa isku dhaashay walaalayaal dadka maanta baraha bulshada inaga caayaya ee warbaahinta inaga caayaya ee Soomaaliya inaga caayaya ee inagu sheegaya amxaarada xabashida Itoobiyaanka sikhraamiinta muqayiliinta yaa qabiilka inagu sheegaya ayaa maanta inta Hargeysa ka tagaan la soo dhaweynaya maxaynu iska daalinaynaa marka runtaan isku sheego كل فدم عندك قيل واحد دلي دباتدا واحد دلي وذا هذا الكيس Soomaaliya la galay isku milan buu dhalay isdhexgalkii bulshada ay ka faa'iideysteen suxufiyiin bay noo soo dalbadeen abwaaniin bay noo soo dalbadeen maanta Hargeysa iyo Burca iyo Berbere iyo Gabiley dadkii la xasuuqay ayaa maanta farmaajo looga hambalyeynaya wali taariikhda ma dhicin qaladka xukuumadda gashay ilaahay baa kugu dhaarshay maxaa lagu la yaabaya Cabdi Maalik maxaa lagu la yaabaya maxaa ku dhaayay ay sheegeen Yurub geeyo kuwa xamar tagay Hargeysa ka tagaan xamar bay tagaan maxaa lagu la yaabaya ma ahayn xukuumaddu waxa ay ka gaabisay warbaahinta koonfurta Soomaaliya oo leeyno soo adeegsaday war BBC-du maxay ku tartaa VOA-du maxay ku tartaa Universal maxaad ka faa'iidaa Star maxaad ka faa'iidaa Sam Cable maxaad ka faa'iidaa Somali Cable maxaad ka faa'iidaa horumarkaaga kama hadlaan abaara kama hadlaan maxaa ku raay dawlad wanaag iyo dimuqraadiyadda ma sheegaan xitaa magacaaga Somaliland ma sheegaan gobol waxay yiraahdaan gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya siday ku bahdilayaan propaganda isku dir munaafaqad xaasidnimo wax kale waxa ay awoodi kar weeyay inay warbaahinta koonfurta Soomaaliya ka madnuucda dalkeena wasaaradda warfaafinta maanta wasiirka wasaaradda warfaafinta de waxa la waxay og yihiin ma jiraan war ma akhriyaan qarankeena lama socdaan oo waa taa maanta looga ololeynayo gudaha Soomaaliya wax alla waxay wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda warfaafinta hal eriyo hal laga bedelo maanta solja ka xukuumay xuutan la yiraahdo yaa xamar buu ololeeya wax alla wax uu kantaroolo iyo wax uu og yahay waa saxaafadii qaranka waxa ahayd inay wararka la tabinayaan ku tabagasho waxba kama oga haddaba maxaynu isku daalinaynaa maxaa loo xidhxidhayaa Universal ninkii haystay ee ugu weynaa Universal halkii leeyga naga caayay bahay ee leeydi reer Somaliland waliba reer Sheekh Saxaaq waa su'ul nooga caayay oo ninka Cabdi Xoosh leeyna uu ka caayay meeshii leeydi baad reer Sheekh Saxaaq qayl iyo khamri bay leeyimaadeen Muqdisho xitaa hableena laga caayay wala sii daayay maalin baa la xidhay daqiiqada gudahood baa la sii daayay maxaa loo sii deynay maxaa markii hore loo xidhay halka aynu ka dhimanay waa xukuumadda weyn war tahriib baa lagu dhamaaday abaaraha lagu dhamaaday sixir bar baa dadkii halakeeyay caafimaad ma haysano layr ma haysano dawo ma haysano hindiyaa loo tagaa wadada yare la sameynay shacabka sameeysta intaasoo dhan baynu ugu dul qaadanaynay maanta haday sharafteeni iyo dawladnimadeeni iyo madax banaanideeni difaaci weyday maxay noo qabanaysaa war Ethiopia waa 80 milyan oo kala afa oo kala diina oo kala dhaqana oo kala maxaa ku laayay kala gobol haddana nin qeyrkooda isku hayo waa 80 milyan Kenya waa 50 milyan nin qeyrkooda isku haya وانا كلا وانا كلا دي نيجيريا وبقولية 7 مليون و5 مليون ولا السنية ولا محاكو راي مسلم كا ولا الصومالي كا مي مامول كريلاي اوي عدو قودا كدفاعي كريلايين إلهي باكو داشي ولا ليال
somaliland dhalinyarta somaliland waxaan ugu baaqayaa xukuumadii way seexatay dhibaatada cayda iyo dhibta iyo waxa xukuumadda inoogu wacan maanta waxa la gaadhay waqtigii aynu qarankeena difaaci lahayn war miyaa layna sixray cagdheer bayna sixirtay mala ogaadeenkii qaadka inoo keenaysay Ethiopia na sixirtay mala caadi ma nihin wallahi baynaan caadi ahay wallahi oo bilaahi baynaan caadi ahay war waxa weeye xukuumadda hala kiciyo warbaahinta koonfurta Soomaaliya laga mamnuuco bal ilaahay baan kugu dhaarshay maanta waxaad eegtaa Somaliland all news eeg waxa ay soo qoraan eeg maanta tijaabi dalka waa loo tashaday wada hadalkii Soomaaliya wuxuu dhalay isku milan buu dhalay wuxuu dhalay inay nooga faa'iideystaan in qarankeena lagu dumiyo in la isku kaandiro ayuu dhalay anigu waxaan ugu baaqayaa xukuumadda haddii aanay sida waxba ka bedelan hays casishaan leeyahay hays casisho dhibaatadan iyada noogu wacan wada hadal bay la gashay maanta dalkeeni gacan kuma jiro waa kuwa maanta farmaajo u heesaya afweyne waa kuwa u heesaya war maxay qabatay tuke Mareykanku jooga ninkii xasuuqay reegibile Morgan waa ka garowo jooga lagu xukunayo maxkamad lama saarin laguma soo qaban magdhow maad helin maxaad ku dhimanaysid maxaynu ku dhimanaynay ma in aayar hargeysanka laga duulo xamar la tago ma in maanta hargeysa gudaheeda looga ololeeyo farmaajo xukuumadda maanta jirta xukuumad ka liidata inamay soo marin waxba yeynaan been isku sheegin runtaan isku sheegin aniga kana walaalkaya aniga kana ayaa abba ah oo ii hooyo ah oo ii adeera oo ii abtiya oo ii naadeera kacaan igu ixtiraamayn ee nugu ilaalinayn ee nugu shifaynin walaalkaya ahaadee aniga waxba iima tolkay waxa leeyahay war maanta waxa la gaaray maalinteenu midoobi lahayn qarannimadeen daari cali soo kuma caayeen yaa cabdi xoosh kuma caayeen cid kale kuma caydeen cunsuri laguguma sheegeen Ethiopia laguguma sheegeen hataa intaad xuduudkaaga xidhato kii Soomaaliya soo qaada ee xamar ka hadlaad xabsi ku tuurayso shacabka Somaliland waxaan ugu baaqayaa war hurdada ka kaca dhalinyartu hurdada ka kacaan Somaliland jiri mayso haddaan maanta la badbaadin beelaha kale runta aan isku sheegnay marka hore afweynaaba raacsanaayeen oo fursadun bay sugayaan in Soomaaliya nabad noqoto bay sugayaan iyo Soomaad garan waxa ku dhiman doonaano waa inaga war dalka hal la badbaadiyo oo dalka hal la badbaadiyo xukuumadana waxaan ugu baaqayaa dadka oo cadaalad samayso ama wiirteeda haddaanay fulin karayn oo kii dawladnimadeena wax ka sheega ayna nasabcaayaya ee sharafteena meel kaga dhacaya haddii aanay waxba ka qaban karayn ha iska wareejiya dad qabanaya loo yeelaya ilaahay baan ku dhaarshay warbaahinta madaxa bannaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh haddii ay uga madniici weydo ee weliba koonfurta Soomaaliya ee hagardaamada iyo dagaalka iyo mataqaana dhibta inagu haysa ee qarankeena aasaysa ee ina baahdilaysa hadday ka madnuuci weydo Somaliland jirmayso halgu kala dareero waar Jabuuti waa dal yar futa ay kaga hadlaan ma hayaan xukuumadda warbaahinta koonfurta Soomaaliya futa ay gudaheeda maalintaas khadka laga saara kilka sharaad mukhtaar ina kii yaraayo hoonka bulu shaqaynayay ee gaashaama ka hadlay dagaalkii ka dhacay waa tii lala haaday gooraan habeen ahayn maalin ahayn ee inta wajaale loogu yimid jigjiga lagu xidhay bil buu u xidhnaa hoonka bulna waa tii hawada maalin kaliya laga saaray war maxaa keenay in maanta warbaahinta koonfurta Soomaaliya si kasta ay uga hadasho gudaha Somaliland iyadoo ku bahdilaysa iyadoo ku cusuriyadaynaysa iyadoo qarankaaga dhaawacaysa iyadoo laga caayayo maxaynu iska daalinayna Cabdi Maaligna la sii daayo inta kalena xamar ha tagto oo Soomaaliya laynagu taratay runtaan isku sheegnay halka maanta laynooga soo dhacay waa xukuumadda aad iyo aad baan idin salaamaya fiidooga sheergareeya dhalinyarta Somaliland maanta waa maalintii aynu difaaci lahayn waxaynu ku dhimanay tacab khasaar baynu ku jirnaa war maxaynu aabayaasheen ku weyn maxaynu baaba'nay maxaynu dadkeenu xasuuqnay maxaa laynoo baabiyay maanta aayarin xamar haddii xamar ula tagay ha laga dhiidhiyo arrintana ha la istaago
حكومتنا هلا توسيو انت حكومت بإنك تجيشو دلكنا ندفع عنه دلكنا فروق كفحي وحلا waxay ku mashquulsan yihiin lama yaqaano kolba xaflad baa la qabanayaa aan waxba ka soo baxay dadkiina abaaray u dhamaadeen oo tahriib baa laayay maxay ku mashquulsan yihiin sharafteena ma difaacayaan dalkeena ma difaacayaan qarannimadeena ma difaacayaan inanka yara xamar inaga caaya hargeysa tagayo la soo deynaya maalinta la soo daayana axmaar baa sii tahay bay leeyihiin kuuga abaalgudayaan Itoobiya laga soo amriilay aad baan idin salaamaya fiidooga sheer gareeya حكومتنا هلا توسيو ويساحتي توس هلا فيديو الشركرية قارسية وسير عطاني هلا عسلو هلا غيريو نيكا حوت هلا إله هلا غيريو صحافتنا وحفظنا هلا قبتلو وصحافتنا قرنك هلا قبتلو قرن يا أفبي نقول تقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قد شنن وقال ليلا شنن بانهاي وحي دلي وحابتي أشنن وقو مشاهد باي دلي waxba dalka kuma qabno waxna looma qaban agoomo waxba uma qabtaan mujaahidiintu waxay dhaleen waxba uma qabtaan dadka dhibirka ka xanuunsan waxba uma qabtaan ilaahay baan kugu dhaashay waxa ay qabtaan anagu garamayno xukuumadda waxaan ugu baaqayaa haddii ay warbaahinta madaxa bannaan tallaabo sharciya ka qaadi weydo ay ka madnuuci weydo dalka oo ay dadka xamar tagayana ay waxba ka qaban weydo wada hadalka Soomaaliyana joojin weydo yaa دايس كجرت التمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.